amnigii waa wanaagsan yahay xildhibaanadii waxbaa laga sheegaa amniga dalka gacantu ka baxay kelmadeyda ugu horeysa weeye wax hadda ma ahna aan sheegayno aan faahfaahin badan ka bixinayno laakiin waxaan faahfaahin ka bixinaynaa in xildhibaanadii haddaan nahay annaga lafteen hadda la isugu yimid oo aan annagii irdahana laku dildilaya madaxtooyada irdeen in xildhibaan shalay lagu dilay sidaad ogtihiin oo hadda uu ICU ku jiro haddaan faahfaahin u aadno magaaladan xamar ayaa ugu horeysa meesha ay tahay halbowlaha oo amniga in laga saxo amnigana la sugo magaalada xamar 3 habeen ka hor xaafadda Hurwaa nimankii nabadiidka ahaa ayaa qabsaday subaxdii ay iskaga baxeen magaalada xamar maxkamadda garsoorka ka jirta waxay ku taalaa meesha la yiraahdo awdheegle nimankaasaa dadka suuqa bakaaraha jooga dadka magaalada nala degan madaxtooyada qaar ka degan ay u xukun tagaan meesha amniga uu gaaray in xaqiijinaysaa oo dawladnimadii waxaa lala aaday al-shabaab dalka xukuma oo qofka asagoo xor ah ayuu maxkamad al-shabaab looga wacayo aadaa xukuumadda federaalka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre halkaan markuu noogu yimid 223 xildhibaan ayaanu ku ansixinay waxayna ahayd ujeedadeenu in uu yahay qof vision ka leh dalka ayaan u arkaynay national plan ula socday dalkan u keensan doonaan u arkaynay ra'iisul wasaaraha wuxuu ka dhammaan waayay handadaad iyo maamul goboleed in la handado in qofka wixii hore waa dhammaadeen waxbaa dhammaaday 27 sano kadib haldhigyo hore aan weligan aan arag waxaan ognahay xasan sheekh markuu madaxweyne dalkan ka ahay hal oday oo aan ognahay ugaasa ayuu 2 sano daba socday macnaheedu ma aha xasan sheekh inuu awood u waayay uu ku xakameeyo waxay ahayd dalkani wuxuu u baahan yahay consens ka talagelin dad meesha yimid ka talagelintii waxay warkeen maamul goboleedyadii enerjigaas lagu soo bixiyay hal ugaas 2 sano loo daba socday iska dhaaf wax kale enerjiga la soo geliyay in institutionkii ay adkeeyaan bedelkii ay ahayd waxay ku mashquuleen xukuumadda waxay ku mashquushay sidii loo jirisiibi lahaa maamul goboleed la soo dhisay bedelkii institutionkaas la adkeyn lahaa waxay ku mashquuleen in Facebook iyo Twitter iyo dadka toon sawira ay maalgeliyaan wasaaradii gaashaandhigga dalka waxay isku bedeshay Facebook iyo Twitter mana la qaadan karo xildhibaan xeer hoosaadka hal la ilaaliyo xildhibaankii aan la sacbinin xeer hoosaadkina akhrisanaa fiican shacabka ka daaya xildhibaanka waa maasta gudoomiye halka uu maraya amniga dalka hadda haddii ay saas marayso xukuumaddii qatarta dalka ka jirta ayna arkayn ayna garanayn xalaa ugu dambaysay ra'iisul wasaaraha intuu SYL hotel dad u tagay dhalinyaro meesha ku soo aruuriyay uu leeyahay gudoomiyaashii degmooyinka intuu soo aruuriyay qofka bini'aadanka waa inuu xishoodaa dadka alla hadlaysa waa dad waaweyn oo ku hortaagan inuu soo aruuriyo gudoomiyaashii degmooyinka inuu yidhaahdo maamul goboleedyada waqtigii ay talada bixin jireen waa dhammaatay ma la soo xirxiraya waa yaabne ma xoog baa la adeegsanayaa ma federalismkii baa isku bedelay military style oo in la joojuubo xukuumadda waxay isku bedeshay in ay handadaad habeenii maalin dadka ay ku hayso hadda annaga xildhibaanada qatarta nafteena ku sugan tahay dalkii inaan isaga tagno inaan sii joogi karno ayaa su'aal iska weydiinay amniga meesha uu gaarsiisan yahay waay fadlan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waxaan ka codsanaynaa in uu isgarto dadkii 270 iyo 223 kugu ansixiyay maanta way ku arkeen meeshii aad nageysay attitude national black attitude malihid qofka waa in uu leeyahay dulqaad leadership qofka waa in uu ogolaadaa in la criticize garan karo ra'iisul wasaaraha waxa nasiib darro ah haddii kelmad la sheego si in personal qofka inuu tallaabo uga qaado xukuumadna ma ahan xukuumad dal maamuli karta qof hadlay xukuumad tallaabo ka qaadaysa fadlan ra'iisul wasaare dalka iska cazil xilkii aan ku dhiibnay waa ka soo bixaysay waa naga codsi ummadda Soomaaliyeedna markhaatiga ka tahay inaan fursad ku siinay annaga ugu horeeyay dad qof kasta oo ka hor yimaadaan hor istaagnay in dalkan uu shaqeeyo darteed nasiib darro waxa kama lihid vision dalkan meelna amoodid roonabeeda dhex gelisay roonabeedkan ku dhex wareeganaynaa waqtigiina waa nagu dhamaaday waa iga codsi
waxaana ka codsanayaa mar saddexaad ra'iisul wasaaraha taladaas inuu qaato asagoo la isjiidin dalkan jijiid ma geli karo handadaad la iskulama joogi karo waxaa la iskula joogaa wada tashi iyo istalasiin ra'iisul wasaare waad mahadsan tahay taladeen inaad qaadan doontaan rajaynaynaa waana mahadsantihiin guddoontii xildhibaanada golaha shacabka